qorraxdu dhulka miyay ku dhacdaa? Muuqaalkan waxaan rabaa inaan ku soo bandhigo su'aal inta badan gaaladu ay isku dayaan inay ku ceebeeyaan Qur'aanka. Su'aashana waxay tahay sidee bay qorraxdu ugu dhacdaa god ku yaala dhulka? Dabcan su'aashani waxay ka keeneen qisadii ninkii wanaagsanaa ee la oran jiray Dulqarnayn ee Ilaahay siiyay asbaabta wax kasta kadibna raad raacay asbaabtii la siiyay. Qur'aanka wuxuu inoo sheegay in Dulqarnayn aaday 3 safar. Mid wuxuu ku tagay meesha ugu galbeedsan adduunka, mid kalena meesha qorraxda ugu soo horbaxdo, kan kalena wuxuu ku tagay meel biyo xidheen ku yaalay. Haddaba safarkiisii uu ku aaday galbeedka wuxuu Ilaahay inoo sheegay inuu arkay isagu aragiisa in qorraxdu ay ku dhacayso il ama god dhooba ah, sidoo kalena diiran oo kulul. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay xataa idaa balaga maghrib ash-shamsi wajadaha taghrubu fi 'ayni hami'atin ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. إلهي سبحانه وتعالى وحوليه إلا مركي أوغاري قرح dhiciyay meesha ugu shisheeysa ee qorraxda ka dhacdo. Wuxuu helay ama uu arkay iyadoo ku dhici il dhooba ah. Wuxuu ka helay agteeda qoom, waxaana ku nidhi Dulqarnaynow waa inaad cadaabto ama aad ka yeelato wanaag. Ilaahay wuxuu sheegay wixii Dulqarnayn u muuqday aragiisa in qorraxdii ku dhacayso il dhooba ah. Taasina waa mid cid kasta ay indhahooda ku arki karaan hadday tagaan badweynta ama meel biyo fadhiyaan oo fog. Waxaa la arkayaa qorraxdii oo la moodo inay ku dhacayso meel god ah. Waxaa la mid ah doonta ku socota badda, markay ka fogaato waxaad u malaynaysaa inay galayso meel god ah. Sidaas oo kale ayuu Dulqarnayn ugu maleeyay aragtidiisii in qorraxdu ay galayso il dhooba oo holcaysa. Haddaba gaaladii waxay xujo ka dhigteen Qur'aanka ayaa dhahay qorraxda ku dhacda meel god ah, waxaana la ogyahay in qorraxdu ka weyn tahay dhulka 1,300,000 oo jeer. Markaas sidee bay suurtagal ku noqon kartaa inay ku dhacdo qorraxda sidaas u weyn god dhulka ku yaala? Radinta shubhada ama ismoodsiinta ay gaalada sameeyaan. Ugu horeyn, Qur'aanku moodihin qorraxda ayaa ku galbeysata ama ku dhacda god ama goob ku taala dhulka ee Qur'aanka wuxuu qeexay wixii Dulqarnayn u muuqday, waxaana uu daliil ah ereyga wajadaha. Ereyga wajadaha macnaheedu waxa waaye wuxuu helay oo ay ula muuqatay. Haddii qorraxdu ku dhacdo god dhulka ku yaala, wuxuu Qur'aanka dhihi lahaa qorraxda ku dhacda il dhooba ah, ee wuxuu bedelkeeda dhahay Dulqarnayn ayay ula muuqatay muuqaalka in qorraxda ay ku dhacayso god ama il dhooba ah. Tan labaad, haddii qorraxdu ay ku dhacdo il dhooba ah sida ay sheegteen mulxidiinta raba inay ceeb u sameeyaan Qur'aanka, muxuu Qur'aanka u dhahay Dulqarnayn wuxuu agteeda ka helay dad ama qoom jooga goobta? Sidee bay qoom ugu noolaan karaan meel aad ugu dhow qorraxda? Dadkaas iyo qoomka deganaa goobtaas ee Qur'aanka sheegay waxay daliil u tahay in wixii Dulqarnayn arkay ay ahayd muuqaalka arigiisa ee aanay ahayn qorraxda oo si toos ah ugu dhacaysa il dhooba ah. Tan saddexaad, Qur'aanka wuxuu dhahay markuu ka hadlayay qorraxda sifooyinkeeda in qorraxdu ay ku orado meel ay leedahay ama orbit wareeg iyada gaar u ah. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu yiri wash-shamsu tajri limustaqarrin laha dhalika taqdiirul aziizil aliim. Ilaahay wuxuu yiri qorraxdu waxay ku oradaa meel ay leedahay, taasina waa qadarka Alle, Allaha awoodda leh ee wax walbana og. Qur'aanku wuxuu leeyahay qorraxdu way oradaa. Markaas sidee bay suurtagal u tahay in qorraxdan soconaysa ee socodkeeda joogtada yahay inay ku dhacdo meel god ah ama il ku yaala dhulka? Inagoo weliba og in cilmi ahaan qorraxdu aanay dhicin soona bixin, ee kaliya bini'aadamka muuqaalka u muuqda darteeda ayagaa ula baxay in qorraxdu dhacdo ama soo baxdo. Sidaas awgeed ayuu Ilaahayna u adeegsaday ereygii ay bini'aadamku meel ay joogaanba ay isticmaalayeen. Waxayna arrintaasi cadaynaysaa in wixii Dulqarnayn uu arkay inay ahayd aragiisa oo ay isagu ula muuqatay aragga ah in qorraxdiisii dhacayso. Taasina waa mid qof kasta uu arki karo. Mucjisooyinka ku soo arooray dhacdadan waxaa la yaab leh mar kasta oo ay gaaladu isku dayaan inay duraan diinta Ilaahay. Wuxuu Allah muujiyaa xujooyin hor leh oo ku tusinaya mucjisooyinka diinta Islaamka. Ayadoo ku soo aroortay suuratu Al-Kahfi wuxuu Ilaahay ku leeyahay Dulqarnayn
wuxuu gaadhay meesha ugu galbeedsan dhulka. Kadibna wuxuu isaga u muuqatay in qorraxdu ku dhacayso il dhooba ah. Haddaba aynu isweydiino halkee ayaa ugu galbeedsan dhulka aynu ku noolnahay. Meesha ugu shishaysa galbeedka waa jasiiradda Hawaii ee dalka Mareykanka. Jasiiraddaas waxaa ku yaala ilo iyo godad holcaaya oo ay sababeen volkaanayaal ka qarxaya deegaankaas, waxaana loo yaqaanaa Halemaumau. Ilahaas holcaaya waxaa habeenkii muuqda midabkooda, wuxuuna u ekaadaa sida midabka qoraxda oo kale. Ilahaas ama godadkaas holcaaya, ciddii aragta goor habeen ah wuxuu u malaynayaa inuu arkay qoraxdii oo godkaas gashay. Sidaas awgeed, waxaynu leenahay Dulqarnayn wuxuu gaadhay jasiiraddaas Hawaii ama jasiirad kale oo la mid ah. Kadibna habeenkii ayuu arkay ilahaas holcaaya oo la moodo inay qoraxda ku dhacday. waad ku mahadsantahay daawashadaada. fadlan subscribe, like and share channelkeena. mahadsanid.